soddon sano ayay igu qaadatay inaan fahmo siday lacagta u shaqayso laakiin adiga waxaan kugu fahansiin doonaa daqiiqado haddaad fahmin siday lacagta u shaqayso waxaad u isticmaali doontaa si macno darro ah hanti kuuma dhismayso noloshaada inta ka dhiman waxaad ka shaqaynaysaa waxaad u shaqayn doontaa qof adigoo kale ah ilaa aad ka dhimato carruurtaadana adigoo kale ayay noqon doonaan maadaama ay fahansaneen siday lacagta u shaqayso siday kaga badbaadi kartaa arrintan maanta arrinta ayaan kuu sharaxayaa soo dhawo walaal magacaygu waxaa la yidhahdaa daahir halkan waxaan kaga hadlanaa Wilson Investment Fix and Flip Airbnb arbitrage iyo arrimo badan oo ah sida side hustle lacag u samayn lahayd iyo si ahaantee u dhisan lahayd halkan kaga hadlanaa soo dhawo walaal nasoo follow garee videoyada ka badan 2 daqiiqo waxaan soo dhigaa YouTube-kayga please soo subscribe garee si aad wax badan u fahanto aan ku bilaabo marka koowaad waa inaad isweydiisaa waa maxay lacag haddaan kaga jawaabo waxay tahay lacag waa habka wax isweydaarsiga oo mid ka dhexe guud ahaan loo aqbalo la aqoonsan yahay oo fududeeyo wax kala iibsiga alaabta iyo adeegyada lacagtu 5 ayay kala baxdaa waan ku bilaabayaa lacag la yiraahdo ayaa jirta fiat money oo lacagta xaashida ah iyo coinsiga ah ee dawladda xukunto lacagta labaad waxaa loo yaqaanaa commodity money oo ah lacagta beecsharada oo qiimaha lagu heshiiyey tan saddexaad waxaa loo yaqaanaa commercial bank money waa lacagta oo ka mid tahay credit cardka loonka iyo bangiyada isticmaalaan lacagta afraad waxaa loo yaqaanaa fiduciary money oo lacagta lagu qiimeeyo ama loo yaqaano trust ama loan ama deynta ballan qaadanayso dib u bixinayso lacagta shanaad waxaa loo yaqaanaa waa digital money lacagta crypto iyo wax loo yaqaano blockchain iyo wixii la midka ah shantan kama hadli doono video kale ayaan soo samayn doono aan kaga hadli doono arrimahan laakiin waxaan ka hadlayaa arrimaha ku saameynayo adiga iyo qoyskaaga waxaad isweydiisaa su'aalahan si aad daacad ah oo aad uga jawaabtaa waxaa ku oggolaanayaan inaad fahanto lacagta siday u shaqayso aniga noloshayda ayay bedeleen adiguna waxaan fili doonaa inay noloshaada bedeli doonaan waan ku bilaabayaa su'aalaha isweydiinaysa waxaa ka mid tahay waa maxay financial goals dhaqaale ahaan adiga ma dhisan tahay su'aasha labaad oo isweydiinaysa waxay tahay sidoo income-kaygu ugu soo galaa tan saddexaad isweydiinaysa waxay tahay budget ma leedahay ma og tahay siday lacagta kugu soo gasho iyo siday kaaga baxdo tan afraad isweydiinaysa waxay tahay waa maxay noocyada kale ee income-ka kugu soo geli karo tan shanaad isweydiin karta waxay tahay sidee lacag ku save gareyn karaa ama u maalgashan karaa tan lixaad waxay tahay sidee lacagtayda canshuurta ku badbaadin karaa maadaama lacagtan aad shaqaysay aad ku daashay sidee ku badbaadin kartaa tan kale waxa weeyaan waa maxay credit sidoo u shaqeeyo wayna isweydiisaa shaqada aan ka shaqeeyo haddaan maanta ka tago noloshayda ma isbedelaysaa sidee income-kayga kor ugu qaadi karaa ma jirtaa shaqo ama ganacsi aan bilaabi karo maanta oo ii ogolaan karo 5 ilaa 10 sano gudahooda si aad dibdame uga shaqaynin dibdamaan u shaqaynin waan helo waxa loo yaqaan financial freedom su'aalahan waxay ku oggolaanayaan inaad fikirto aad ogaato habka ay lacagta u shaqayso inaad ka wada jawaabto ma aha laakiin waa muhiim si aad u ogaato marxaladaada dhaqaale inaad su'aalahan isweydiisaa haddaad rabto inaad barato sida real estate investment loogu samaysto iyo ka mid yahay fix and flip buy and hold wholesaling haddaad rabto inaad barato waxa sida loo samaysto goal setting budgeting iyo nidaamyo badan oo lacag lagu sameeyo nasoo follow garee youtube-kayga aad soo subscribe garee insha allah wax badan ayaad ka baran doontaa haddaad rabto inaad soo gaabiso barashada xirfadahan ama badbaadiso waqti waxaa aadaa website-kayga saxan investor soomaali adoo kale ayaa waxay ka bartaan sida real estate investment loogu samaysto oo ay u ogolaat iyagoo aan college aadin waxay baranayaan arrimahan haddaad rabto inaan kaaga jawaabo wixii su'aal aad qabto tiktok-kayga live ku soo biir insha allah videoyada ka badan 2 daqiiqo waxaan soo dhigi doonaa youtube-kayga haddaa aado wax badan ayaa ka faa'iidi doontaa youtube-kaasi marka hore ingiriis ayaan ku hadlayay laakiin hadda af soomaaliya aan u bedelay insha allah way salaamaya marka la soo qabtaa